nin adi biri markii ilmo u dhashid kugu rakaateynaya ilmahaaga oo ilmahan ama saana ku yeela ama ilmahaaga u duro ku dhahayo taas waxay ka mid tahay daciifnimada waayadan dambe la imaadeen ragga Soomaaliyeed sababtoo adi ilmaha adina aaba u tahay asna hooy u yahay mas'uuliyadda adi ku saaran laba jibaarkeed ba asagana saaran maadaama uu nin raga yahay ma aha marka gabdhaha in lagu beer jilicsado ama lagu rakaateeyo ama looga faa'iideysto fursadda daciifnimo ee ilmaheeda dartiis sababtoo hooyo wax walba oo adduunka yaalo ilmaheeda ka jeceshahay ilmaheeda dartiisna wax walba way u sameyn kartaa insha Allah gabadha walaashay waxaan leeyahay ilmahaaga dartooda wax walba u samee wax walba ku samir intii gaala iyo dad aan aqoonin iyo balaayi ajnabi iyo dhibaato kale ay kaaga kor lahaayeen waxa ku fiican adigoo jirkaaga maalin bacad la gooyo inaad ku noolaatid ilmahaagana aad ku haysatid insha Allah بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا سلامة لما ولا لها كحران channel كيجا ملك استأدونك أكيد جوكتين وحني رجينا غير عافنا فرحان بش إبرواقين أكون ولاتين إن شاء الله إن ما أنت برنامج كأنين هايو شيء كذا أنا ذين هايو إن شيء كوين كرو يكون وانتها إن شاء الله بحرجينا إن الفيديو جا داون دونتين كدبنا أفكر كنا نلسه وذاك دونتين هذا إلهي هذا إن وحنا أنا أنكر هنا وأركيسين إن شاء الله waa gabar Soomaaliyeed oo walaasheena oo dhiban oo ninkeedii uu dhibay waayadan dambe sida u jeedno waxaan u maleynaa waxa soo badanayso gabdhaha la dhibayo haday ahaan lahayd mid la dilo mid la qalo mid la qariyo mid wax ayu shay wax walba oo xumaan ah lagu sameyn karo hooyo Soomaaliyeed mid caruurta laga qaato marka insha Allah waxaan rajeynayaa Ilaahay waxa uga baryayaa gabdhaha Soomaaliyeed oo dhiban hooyooyinka Soomaalida dhiban meel kasta joogan inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku xifdiyo oo dhibka uu ka qaado ayagana waxaan u dardaarmayaa samirka wax ka fiican malahan wax kasta kugu dhaco Ilaahay baa ku keenay alxamdulillah shukran aad waaye insha Allah gabadhan waxay ku nooshahay wadamada qurbaha waa hooyo haysato 4 ciyaal ah Ilaahay u daayo sidaas oo tahay waxa ku dhacday arin aysan filanaynin waqtiyadii hadda sanad ka hor waxay dhahday waxaan aaday samar oo uu aaday magaalo kaleeto sida caadada ah waxay dhahday samarka markay aadayno aniga iyo xaajigayga waa israaci jirnay mar walbeeto caruurta asaa iga la heen jiray sida la wada yaqaanaha qoys isku kaalmeeyo oo wax walba wada qabsado ay ahaayeen waxaa dhacday mar badan oo samarka ay aadi jireen hore waxa raaci jirtay gabar oo dariskooda ah oo la degneed guriga oo ayadana markaas mar dhow ka imaado wadan Soomaaliya ka tagto oo markaas wadanka ku cusub oo tagtay amar walba ayaga way heshin jirtay maadaama ay daris la tahay gabar kaligeedana ay ahayd daris la tahay oo israaceen oo meesha isla tageen waxa ku dhacday gabadhii sidii mar walba isku raaci jireen gabadhan ayada soo dhaweysatay oo dhahday maadaama aadi kaliga tahay anaga nala joog nala soco maxaa dhigi jiray marka anaga samar aadayno kala raacna way hesho ayadana way isku kooleysaba dad waa taqaanaa haddii mar wada isdhex galaan ama ay bulshada ay isdhex gasho ama la wada noolaado ama la isdabeecad fahmo wax walba dhan dhex mari karo dadkii isbaranayaan ninkii isbarteen ciyaalkii isbarteen reerkii oo dhan waxay noqotay qof ka mid ah family-ga ka tirsan sida ugu ahayd oo ula joogtay gabadhii oo ula wax walba sameysanaysay samarkii hadda dambe waqtiyada waxaan u maleynaa Yurub hadda samar lagu jiraa gabadhii waxay tiri mid raacay markaan anigu waa idinka harayaa gabadhi way yaabtay markii laba mar hore raacday markii saddexaad waa maleena hadda tirsanka saddexaad la joogtaa isla degan yihiin waxay dhahday maxaa dhacay maxaa nagu diiday maxaa noo raaci weysay tripka hore dadka corona meelaha aad noo diiday in aadna bilii hore laakiin bishan hadda waa noola furay magaalooyinka waa aadi karnaa meesha rabno iyo meesha u dalxiiseeno soo fiirin karnaa carruurana soo baashaalin karnaa إذا ولدت حدرك نوجره قبل أن ولدي دحيت ما يمكن راعي ولا شيء يمكن راعي قبل ما كتركم راعي ننكر وحده كم راعي أديك اللي جامعة تأد واي ما شربت ساعة مرة بحيت لما أنا قلت طولة أو نود أو حاجة تترى أن أدنو أو يوجكته خبريرتي ومرة بقى متقنت هذا أو كسو تشوف بدلنا أو كسو باشالنا إن قبل أن حيت لما راعي أسمح لي لما راعي مركب مبحين هولا يطالع حاجة واي إسكتك أرض هذه gabadhu waxay u cuntabi weysay inay ninka caruurta kaligeed ay qaxayso ninkii ka tagto
gabadhii raacay jirto haday ninka xataa uu haro wehelin lahaydna ee diiday itraano kuma raacay marka way fikirta waxay la yaabtay waxa isku beegay waxa dhahay wiilwal wuxuu dhahay maxaa kulmiyay waranka iyo weedha maxaa kulmiyay waxay tir maxaa kulmiyay naagta kuma gabadha ku tir kuma raacayo iyo ninkii ku dhahay anna kuma raacayo shaqan leeyahay shaqada u soo baxday hadda waxay tahay oo awalba u aadi jirin bas gabadha waxay tiri hay waayana idinka tagaayo waan baxay tiri waxay dhahday ilmahaygaan watay waxaan aaday tiraahday tuuladii habaryartay baa ilmihii ugu soo tagay habeenkaa la soo joogay tiraahday subaxiyaan soo laabtay tiraahday aniga keligay ilmihiina waa ka soo tagay markaan soo noqday maxaa dhacay tiri gabadhi markay soo noqotay oo gurigooda kusoo noqotay waxay u imaaday gabadhi kaleeto iyo ninkii oo guriga gabadhi isla joogo maadaama ay vlog ay wada deganaayeen ay isla joogaan oo dad caadi oo nin iyo naag isqaba camal oo kale xishoonin inuu gurigooda isla joogo adduunkooda wada dhaqanaya ah gabadhi fajacid iyo waxay ku noqotay ceeb inay naagti dhameedo aaminto walaasha ka dhigato ehelka ka dhigato soo dhaweysato wanaajiso wadanka ay ku soo dhaweyso mar walba meel aadays ay kaxaysan jirto habeenkii xataa cashaadii la rabo israaceen ay xaajigeedii ciyaalkeeda dhahaysan keen adiga xataa qof kamida familigeena iyo ciyaalkeena kaama tageeno dhacdooyinkan oo kale inta badan horta way dhacaan marar badan oo way dhaceen oo dad Soomaaliyeed ay ku dhaceen waa la soo arkay waana maqleen xataa laakiin waxay tiri marka waxaan sameeyay aqoon waayay tiri aniga waaga igu bariyay tiri qaab aan ula hadlo iyo qaab aan ku dagaalamo iyo qaab aan ku warramaba aqoon waayay tiri ilaa ninkani naagta waxay tiri way isqabeenba muddo sanad ah ay isqabaanba arnaag Soomaaliyeed miskiin sana naagtii miskiinimada naag la qabo oo la degan guriga la joogtay fahmi weysay in ninkeeda uu qabo iyo in kaleeto marka gabadhi waxay tiraahdaa marka arrintaas ay ugu dhacday oo arkay tiraahdaa xaalkan inuu xaal iga soo horeeyay oo dadkan ay qiyaano ii maleegeen oo ninkan inaagtan isguursadeen muddo aan anigana ogeyn intaas lii aamusnay aan waxaan qaatay tiri go'aan ah inaan ayada la hadlin oo waxba aan ku darsanin waan hadda waa sida go'aanka ugu fiican waa naag maxaa kala dhaxay horta ninka wax kala dhaxayaan naag maxaa adii naag maxaa isku kinkeen karo waxa iskaga maki jiraan ma guriga soo salaatay tiri waxaan doontay ilmaheygii xaafadeeda ku soo laabtay ninka markuu imaaday aniga su'aal ma weydiinay tiri waa ka aamusay maalmaan ka aamusnaa waxba aan weydiinin maalmo kadib bay tiraahdaa waxaan iray tiri haye adiga saan igu sameeyay waa ogta waxa igu sameysay ilaa haddana muliima iima sheegaysid wixii dhacay iyo waxa sababtaas u sameysay saas darteeda ani aan kala faatixaysan nagu kala kaxee waaye naagtaada cusub iyo reerkaaga cusub aad asna wuxuu ugu rakaatay tiri haddaad isku dayid inaad afaaraha dhahdid naagtaas aad iyo aniga aad iyo noqoto rakaato labadanada mid raac ah adna waxaa kugu sameynaa u dhahe ilmaha waa dacweynaha u dhahe ilmaha waxaan ku sheegaa u dhahe gaalada inay ilmaha naga qaataan aniga ayda aan haysan karno laba qeyr mas-uul aan ahaa hey aabbo waxaa sameyn kara horta adduunka korkiisa ma saarey ma malaynayninba oo ku dhacay inuu aabba ilmihiisa uu maanta dhaho haddaad isku dayid inaad isheegtid ama afaarahayga soo gashid iyo naagahayga iyo howlahayga adna ilmaha kaaga rakaateena gaalada inay naga qaataan dhiibo ilmaha dil qaato horta yaa ugu xun asib aabbo waay ilmaha mas'uuliyad baa ka saaran waa ninka dhalay naagta kaliyeeda ilmaha u ah hooyo ma lagu barjilc maadaama hooyo tahay oo ka qalba jilicsan ma lagu sii beer jilicsanaa inay wixii rabo laga sameesto hadii kale ilmaheeda laga dhiibi doono marka talada linka raba waxay tahay hadii waxay tiraan hadlana mana aamusnaan karo waxay tir naag la qabo saaxiib loo ila degan oo aniga dariskayga tirado wax ugu sameeysan ka aamusnaadana wax kale hadii hadlana wax waligu hanjabay tirana ilmaha ay noqonayaan hadafka iyo guusha ugu weyn oo liigu taag rakaateyn karo talada marka waxay noqon lahayd ana horta taladaasi waxa waaye waxaan dhahay wixii qabaay iyo wixii la aroosay iyo wixii la guursanay la guursado wax walba waxa kaaga fiican ilmaha wax la siisto ma laha ninka ilaahay afra u baneeyo haduu ku xumeeyo qofka ku xumeeyo 10 laga qaataa soo ma qof kasta ku xumeeyo ma adiga qofka dadkaan ay bini aadamku is xumeyn karaan qofka adiga jirkaaga qaab kamid ma ahan wixii rabo ka samaysan karaa maalin xumaan way kamaan kartaa shalay soo ku jeclaa oo biri ku nici karaa saas darteed haduu asagu ku xumeeyo wax walba waxa ku fiican u turatid ilmaha ama ha ku qaba ama ha ku furo asay u taashay soo hooyada ama soo hooyin adig kaliya waxa sameyn kartaa ina ragnimadaada naagnimadaada ina adka ragnimo markii daadada ragmooda naagnimadaada ina kaashadid oo ka qaadatid wixii kugu dhacay 10 oo ninkaas aadan u xirin u furin jilaaci iyo nihidi horeeto iyo filmaanti hilindiga iyo jiliinka iyo cashi igey
dad waa in nacdo iyo waxaas oo dhan iska dhaaftid ilmahaaga afarta iska korsatid asagana afaarihiisi badiisa ka baxid haddii taas naa ku noqonayso iyo haddii uu la joogay iyo hadduu adig kula joogay asay u taashaa laakiin adiga hadduu ku imaadana aadan xumaan iyo wanaag midna wejigaada aad ka dareemin adduunka iska dhaqdo ilmahaas bis aad ku ilaashid wax walba aad ku fiirsid ilmahaaga dhib kasta kugu dhacayo waxaa la rabaa inaad ugu samirtid ilmaha adiga taladaas haddaa ku qaldana way isoo sheegi kartiin haddaa idinka talo kale ay ugu soo daraysiinna commentiga hoose wixii fikirkiina aad noogu reebi kartiin insha allah waxaan rajeynayaa dhammaantiina khayr caafimaad goor walaasheena ilaahay waxa ugu baryaa inuu ninka shaydaanka wax isku sameeyay inuu xaqeeda ilaahay uga soo qaado sababtoo ah inay ugu qiyaamo oo hoostaada naag laga arooso adiga kula deganeedo dadka ku xigto aad soo dhaweysanaysay haddana maxaa la dhihi jiray lagugu sii rakaateena ilmaha marka ilaahay ilmaha naga noo barkay inta ilmaha haysata ilaahay ilmaha barkay inta haysan Allah siiyo nimanka gabdhaha ku rakaateen ilmahoodana ilmaha idinka waa dhasheenay mas'uuliyad baa idinka saaranay mas'uuliyadii aabanimo ka soo baxaano ku kalifin in aabayaasha dhan aan colka goosano dhahno markii aaba aragnaba aabana ana dhaanta aabe insha Allah khayr